shirkan jaraa'id oo maanta ku qabteen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay kaga hadleen xaaladaha siyaasadeed ee xilligan ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo shirkooda jaraa'id ku sheegay in xilligan aysan diyaar u ahayn in la burburiyo maamulka Koonfur Galbeed waxay ugu baaqeen shakhsiyaad ay ku tilmaameen inay majaxabinayaan hanaanka dawladnimo iyo horsocodka maamulka Koonfur Galbeed in ay ka laabtaan mowqifka ay ka taagan yihiin sida aysan u doonaynin in bulshada Koonfur Galbeed ay la jaanqaadaan Soomaalida inteeda kale. Xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in mas'uuliyiin ka socota dawladda dhexe ay faro ku leeyihiin burburka ismaaradida xilligan ka jira deegaanada Koonfur Galbeed waxayna dawladda dhexe ugu baaqeen in mas'uuliyiinta xaggeeda ay ka socdo ay u ka digtoonaadaan arrimaha soo faragelinaya hanaan socodka iyo wadajirka bulshada degta deegaanada Koonfur Galbeed. Waa kuwan qaar ka mid odayaasha oo talo iyo tusaaleyn u soo jeediyay bulshada degta deegaanadan. may weelay shalay oo dawladda federaalka odayaasha dhaqanka hadiseen 2012 ilaa cartala ku bilaaw iyo man hada mar walba iyo wala hadisayaan walaagii Allah ayaa dhisan in la dudumiyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed man raala ma ka naqdaan ooyana shirkaas oo ka saabsanay saddex arrimood saddex qodob iyo ka saabsanay shirkaas may baleen ku hadlaayay bariyahan may hashaac baatay in la raw dad isbedel doon aan raw isbedel doon may la faday in irita ku galo annagan isberberdoon annagan Koonfur Galbeed odayaalka dhaqanka hadhaseen system dheer yalahan mari asadiidun gobol walanka dhismayaan in oo ilaahay mar la ka targalo la ogolaado ya iska raani ogolaani walaal dhisay wala ray isaga siin dhisni hadan qabiil ilaahay amar shajarat 20 ku jaraan ya sidilan la siin ku xuli ولا مشاركين قاعدة نبدين قلا والحكومة ودنكين خروج تدلسين كويسين لما نيجي كفور تان ونرال جيم مكان نقدانو همين مكان نقدانو شكو يمدين معها عيار يوم أردت مجلس كلا اللي ما مقلو أضياشة وحي أفضيان كان وحي أفضي جيران أفضي جيران أفضيان محادعي دولة دان hadda oo lagu naaloodo oo maarta wadamada oo maarta magaciisa lagu faanoyo dadkii soo aas wax hadil wayn kii loo naqay way kullu shay yarju ila asli dadkii loo naqal lahaa dis waxay halaaw loo naqal lahaa halka fadhiyo. Siyaasadaha wareersan ayaa xilligan ka jira deegaanada Koonfur Galbeed xilli madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan laga gudbiyay mooshin ka dhan isaga maamulka Koonfur Galbeed ayaana ku dadaalaya sidii uu qancin lahaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale xildhibaanada ka soo horjeeda siyaasadda maamulkaasi. Maxamed Abdi Casiis Salaad TV-ga iyo Radio SBC Baydhabo.